عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا مقال عصب يمانتي كيم جون أون حقي كدن بيي هدي كيم جون أون غيريودو يا بدلي دونا وحكومة دونا نورث كوريا سيدا نقود دونان حالة ودنك كوريا ياي فائدة أتهي إنو كيم جون أون بوسكا كبحو. السلام عليكم دمان أمد الصوماليات ميل كستوات كسو انتهين waxaan idin rajaynayaa rabadaan wanaagsan iyo in Ilaahay naga aqbalo acmaasha wanaageeda. Kim Jong Un oo ah kaligiistaliskii wadanka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay warbaahinta reer galbeedku hadal hayeen labadii isbuuc ugu dambeysay tuhunka ah inuu nool yahay iyo inuu geeriyooday oo la qarinayo ama shaki weyn ku jiro. Haddaba waxaan xil weyn iska saaray inaan muuqaalkeena maanta ku qaadaadhigno waxa tuhunka keenay iyo hadiiba ay dhab noqoto oo geeriyoodo yaa bedeli doona Kim Jong Un oo hogaaminaya Kuuriyada Waqooyi. sidee noqon doona wadanku mar haddii ay maqlaan dadku inuu Kim Jong Un meesha ka baxay oo geeriyooday yeesadan ugu jidaa geerida ama inuu meesha ka baxo Kim Jong Un. waxaan kaga jawaabi doonaa su'aalahaas muuqaalkeena maantay. la socod wanaagsan, fadlan ha hilmaamin inaad subscribe tiraahdo kuna soo biidho channelkeena Koryaal dhanka kore ee nolosha. mahadsanidin. tani waxay ahayd munaasabadii sanad guuradii aasaasihii wadanka ee Kim Il Sung laguna qabto sanad kasta magaalada caasimadda wadanka ee Pyongyang. waa awoowihii Kim Jong Un. waa munaasabad joogto ah oo sanad walba bisha tan oo kale la qabto, laakiin waxaa ka maqan goobta waa Kim Jong Un oo ah hogaamiyaha wadanka. maqnaanshiyaha Kim Jong Un ayaa haddaba keenay su'aalaha xagee ku dambeeyay Kim Jong Un, waa sidee caafimaadkiisu. inkastoo ay adag tahay in xog fiican laga helo maamulka shuuciga ah ee wadanka ka dhisan, waxaan haddaba isku dayaynaa inaan eegno dadka u dhega nugul ama la socda dhaqdhaqaaqa dowladda waqooyiga Kuuriya oo kala socda inta badan satellite-ka ama dayax-gacmeedyada. haddaba waxaan eegi doonaa sawiradii dayax-gacmeedyada laga soo qaaday dhaqdhaqaaqii diyaaradaha madaxtooyada wadanka, tareenka khaaska ah ee Kim Jong Un, isbitaalkiisa iyo sidoo kale meelaha uu ka degan yahay wadanka. aan ku bilowno madaxtooyada wadanka oo ku taala kasoo jeedka goobta lagu sameeyo dhoolatuska militariga loona yaqaano Pyongyang Forbidden City, macnaheeduna yahay xaafadda mamnuuca ah ee Pyongyang oo la ogolayn inuu qofku soo galo hadduusan ID khaas ah wadan. marka aan fiirino madaxtooyada wadanka, waad garan kartaa marka uu madaxweyne joogo iyo marka uu maqan yahay. waxaa jooga oo ku agmeeraysan madaxtooyada waa ciidamada waardiyaasha ah, ciidamada khaaska oo muuqaalkeenan ka muuqan. sidoo kale haddaanu eegno kliniga ama goobta caafimaadka oo ku taala xarunta agteeda, sawirkii hore iyo kan dambe farqi ayaa u dhexeeya oo waa la bedelay oo goobtii caafimaadka waxaana laga dhigay dhismo weyn. haddaba haddii uu Kim Jong Un xanuunsan yahay, meesha ugu dhow ee lagu maxnaanin karo waa isbitaalka magaalada oo qayb dhan ay iska leeyihiin qoyska Kim Jong Un. marka aan eegno qaabka gawaarida madaxweynaha loo nidaamiyo ama protocolka, waxaa muuqata in lagu nidaamin lahaa meel u dhow isbitaalka qaab nidaamsan oo kala dambeyntii leh oo mootooyinkii waardiyaasha iyo kuwii ciidankaba ay safan yihiin. haddaba muuqaalkeena kama muuqato inay ciidamadii iyo mootooyinkiiba joogaan. meel kale oo xog baarayaashu diiradda saareen waa goobta tareenka ku dhow Wonsan, mid ka mid ah goobaha ugu jecel yahay Kim Jong Un ee uu u damaashaa tago. dhowaanna waxaa la arkayay tareenkiisa khaaska ah oo ku baakiman goobtan si joogto ah. haddii ay xaaladda Kim Jong Un aad u daran tahay ama uu xaalad degdega ku sugan yahay, waxaa jirta goob kale oo khubaradu ku tuhumsan yihiin oo ah goob u dalxiis u dhow dhanka waqooyi wadanka Shiinahana deris la ah. waa goob khaas ah oo u yaalaan xarun caafimaad, qolka uu ku hago ciidamada khaaska ah wadanka haddii inqilaab la isku dayo ama wadanka cid ku soo duusho. waxaa kaloo faa'iido leedahay goobtaasu haddii ay xaaladdu ku xumaato, waxa uu si fudud ugu baxsan karaa xaggaas iyo wadanka Chinaha. haddii uu Kim Jong Un xanuun ka soo kabanayo, waxa uu ku bogsan lahaa goobtan oo aabihiis markii wadnaha xanuun kaga dhacay sanadii 2008 isku baxnaaninayay. waxayna u fiican tahay goobtanu haddii uu soo bogsado. waa meel xoogaa yar u jirta magaalada caasimadda si uu muuqiisa u keeno fagaaraha siyaasadda. haddaba daawada mid ogsoonow, dowladda waqooyiga Kuuriya way la socdaan in laga daawanayo satellite-ka, waxaana dhacda in mararka qaarkood ay bedelaan runta ama jeediyaan indhaha dadka ka daawanaya satellite-ka, oo xataa dhacdo in madaxweynaha safar ku maqan wadanka dibadiisa ay gawaaridiisa iyo ciidamadiisa khaaska ah madaxtooyada istuumaan una shaqeeyaan sida in madaxweyne meesha ka jiro ama madaxweynuhu joogo.
waxa kale oo meesha ku jirta in Kim Jong Un ku jiro xaalad caafimaad oon fiicnayn isagoo ah 36 jir aadna u miisaan weyn. waxaa lagu sameeyay qaliinka lugta sanadkan bilowgiisa waxaana jirta tuhun ka yimaaday xagga iyo Washington oo ah in bishii August uu ku dhacay wadna xanuun isagoo kooma galay dhowr bilood lana qarinayay xogtaas. fiiro gaar ah dhammaan xogtan aan kor ku soo xusnay kama turjumi karaan waaqiciga dhabta ee haysata ama ka jidda waddanka kuna saabsan Kim Jong Un, balse waa mala awaal iyo dadaal ay sameeyeen khubaradu maadaama xogta waddankaas aysan sahlanayn in si fudud lagu helo. haddaba haddii uu Kim Jong Un meesha ka baxo yaa bedeli doona sideese noqon doona xaalka waddanku. Kim Jong Un waxaa la dhalatay gabar walaashiis ah Kim Yo Jong oo 2 sano ka yar, waana qofka kaliya ee dhiig ahaan bedeli kara Kim Jong Un maadaama ay carruurtiisu aad u yaryar yihiin. xaaska Kim Jong Unna aysan siyaasadda wax lug ah ku lahayn. laakiinse su'aasha weyn ayaa waxay tahay ma aqbali doonaan generaalada ciidamada iyo shacabka reer Kuuriyada Waqooyi inay hogaamiso haweeney. waxaana sidoo kale xusid mudan in xilka uu ku habboon yahay qof leh dhiigga ama caa'ilada Kim Jong Un ayna xaq tahay inuu xukumo. waxaa sidoo kale xusid mudan in wadamada deriska la ah sida China, South Korea ay walaac weyn ku hayso haddii Kim Jong Un geeriyoodo waddankuna foodo noqdo in qaxootiga waddankaas ay xakameyn waayaan sidoo kalena ay saamayso dhaqaalaha wadamada deriska la ah. waxaa kaloo meesha ku jira in Japan oo cadaawad weyn u qaba inay midoobaan labada Kuuriya kana mid ahaa dadkii kala qaybiyay labada Kuuriya inay nabar ku tahay inay midoobaan mar labaad labada Kuuriyoon. waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena. waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad ku soo biirto channelkeena ka mid noqoto asxaabta ku xiran Koryaal dhanka Korea nolosha. mahadsanidin.